kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa waxa ay ceerisay macalinkoodii kaas oo kooxda leelinaya 20 bilood ee la soo dhaafay. Thomas Tuchel ayaa waxa lagu xasuustaa dhacdadii Champions League ee si la yaab kale uu ku qaaday kadib markuu ku soo biiray kooxda oo ku jirta bandhig aad u xun. Kooxda ayaa waxa uu ku soo biiray ayadoo ay ku jirto kaalinta tobnaad ee Premier League isla markaasna ay aad ula daalaa-dhacayso guuldarrooyin isxiga. Frank Lampard oo markaas ku guuldareysan waayay kooxda in way isla jaan qaado ayaa waxa bedelay Thomas Tuchel oo saaka shaqada laga ceeriyay. Thomas Tuchel 20 bilood oo kooxda uu joogo waxa lagu xasuustaa in uu kooxda la qaaday Champions League waliba si wali ah. Sidoo kale kooxda wuxuu la qaaday World Cup, Club World Cup iyo wuxuu la qaaday sidoo kale koobka Community. Haddaba Thomas Tuchel ayaa maanta waxa shaqada si rasmi ah uga ceeriyay wakiilada cusub ee Chelsea. Kooxda ayaa iminka waxa ay raadinaysaa macallinkii bedeli lahaa macalinka saaka shaqada laga ceeriyay ee Thomas Tuchel. Kooxda Chelsea ayaa waxa ay indhaynaysaa macallimiinta kala ah macallinkii hore ee Tottenham iyo PSG iyo macallinkii hore ee Real Madrid Zidane. Sidoo kale macallimiinta isha lagu hayo isla markaasna macallimiinta ugu cadcad waxa kamid ah macalinka iminka leeliya Brighton kaas oo bandhig aad ilqabad ah soo bandhigay. Kooxda ayaa waxa ay rajeynaysaa sida ugu dhaqsiyaha badan in ay ula soo wareegto ama ay kooxda ugu magacawdo tababaro kooxda u qalmo. Sidoo kale ayaan hilmaamin waxa aad kooxda loola xiriirinayaa macallinkii hore ee Barcelona isla markaasna hadda leeliya xulka Spain Luis Enrique. hase ahaatee kooxda ayaa weli waxa ay go'aan ka gaarin cidda noqon doonta tababaraha xigo walow aad loola xiriirinaya macalinka Brighton isla markaasna optionka labaad waxa noqon karo macallinkii hore ee PSG ama Zidane. Labadaba kii noqda waan arki doonaa. Wixii ka soo kordha waxaad la socon doontaan